السلام الله عليكم أخيارتا نلا صعودتا صباح وناكسن أيان إذن الله يهي دمانتينبا ميل كستوا دونيدا كجوكتان كسو دوادا مركالي يتبين قارا وكساوسان برامشكا وراركا عالمكا يلافقوركا دبلوماسيادا وكوبي لباتن كمي سنة كاللباكن لحي لباتن تبينتان قضبادان إذن كوغو هيانا وحا كميدا madaxweynaha wadanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa la hadlay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump waxaana ay si weyn uga doodeen xiisadda gobolka Bariga Dhexe iyadoo Erdogan uu fariin u gudbiyay madaxweynaha wadankaasi Mareykanka dooda ugu badan waxay ahayd arrinta Iran oo wax la iska yiri barnaamijka ayaad ku daawan doontaan hogaamiyaha wadanka Mareykanka ayaa xalay digniin u jeediyay dhinaca wadanka Iran iyadoo Iran arrintaasi ay si adag uga jawaabtay dadka qaar waxay ku tilmaamayaan in nabadda ka timaada diblomaasiyadda ay fog tahay una muuqato geed dheer dushii wali inay ku laalan tahay oo dhinacyadu aanay wali samaynayn wax tanaasulaada Trump ayaa la hadlay warbaahinta xalay waxana uu tilmaamay in la gaaray xilliga Iran la soo gabagabayn lahaa xiisadeeda dhowr maalmood oo kaliya ayaa inaga xiga buu yiri in meeshan muranka ka taagan yahay lagu kala baxo xiriiraalinta wadanka Mareykankana waxay dacwad ku soo ogtay mid kamid ah hogaamiyaasha dunida soo hogaamiya dal kamid ah oo 95 sano jiro waxana ay ku eedeynayaan dilka dad Mareykan ah hasaatee dawladdiisa oo ka jawaabtay waxay yiraahdeen tani ma aha wax la qaadan karo hogaamiyahana hoosteena lagama baxsan karo qodobadaas ayaan ku eegi doonaa hogaamiyahaas lagu dhagan yahay ee 95 sano jirana waad ogaan doontaan soo dhawaada ku soo biira YouTube-ka oo subscribe saara xiisadda u dhaxaysa Mareykanka iyo dalka Iran waxay u muuqataa wali inay tahay mid adag oo aan si sahla lagu soo gabagabeynayn marka la fiiriyo hadallada kulul iyo doodaha dhinacyadu ay isdhaafsanayaan wargeysyada qaar ayaa ku tilmaamaya marka la fiiriyo Trump oo xalay gelinkii horena ku baaqay nabad in la qaadan doono ayaa gelinkii dambe muujiyay hanjabaad u jeediya wadanka Iran arrintaasi waxaa ka jawaabay dawladda Tehran oo ku tilmaantay in aysan qaadan karin dooda noocaasi ah xiisadda u dhaxaysa Mareykanka iyo Iran ayaa mar kale cirka isku shareertay kadib markii madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu dib ugu laabtay hadalada hanjabaada saacado yar oo kadib markii uu sheegay in dagaalka Iran uu dhamaad ku dhow yahay fiidmadii Arbacada ayuu Trump sheegay in uusan ku degdegayn arrimaha la xiriira Iran taasi oo muujisay in maamulka Mareykanka wali uu ka fiirsanayo tallaabooyin adag oo militari haddii dalka Iran wada hadalladu ay ku fashilmaan dhinaca kale madaxa wada xaajoodka Iran Mohammad Ghalibaf ayaa sheegay in Tehran ay u aragto calaamad qarsoon iyo kuwa muuqda oo muujinaya in Mareykanku uu doonayo wareeg cusub oo dagaal ah hadalkan ayaa sare u qaaday cabsida laga qabo in gobolka mar kale uu xaalad dagaal galo oo aad u culus taas oo qubradu ay ku baaqayaan haddii markan dagaalka uu bilowdo dhinacyada inay ku adkaan karayso in ay si dhib yar u daba qabtaan wararku waxay sheegayaan in wasiirka amuraha gudaha ee Pakistan uu mar labaad toddobaadkan gudihiisii gaaray Tehran isagoo dadaalada dib loogu soo nooleynayo wada xaajoodka diblomaasiyadeed ee hakadka galay amba qaadaya Islamabad ayaa isku dayaysa inay dhaxdhaxaadiso labada dhinac si looga hortago baaliri dagaal cusub oo gobolkaasi ka qarxa dhinaca kale ciidamada ilaalada kacaanka ayaa sheegay digniino adag ay u jeediyeen haddii dagaalka uu dib u bilowdo jawaabta ay bixin doonaan inay tahay mid adag oo aan sahlanayn baaliri in xiisadaasi si fudud loo soo dhameystiro sidoo kale Israa'iil ayaa ku dhawaaqday in ciidamadu ay ku jiraan heegan aad u sareeya iyadoo laga cabsi qabo in xiisad kale oo cusub ay si toos ah ugu fidi karayso gobolka Bariga Dhexe oo dhan falanqeeyaasha siyaasaddu waxa ay qabaan in Trump uu hadda u muuqanayo in uu u baahan yahay xal nabadeed inuu gaaro hasaatee ay jiraan dhinacyo kale oo qasbaya in hanjabaadaha noocan oo kala ah uu warbaahinta mariyo madaxweynaha dalka Mareykanka iyadoo hanjabaadahaasi xalay uu jeedinaya dhinaca kale waxa uu tilmaamay in dalka Iran colaadiisu ay maalmo kooban oo kaliya ka xigaan dunida inay soo gabagabeeyaan waxana uu yiri tani waxay u muuqanaysaa dadaallo iyo fursado la siin karo diblomaasiyadda
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in xaaladda Iran ee la xiriirta Iran ay si aad ah isu bedeli karayso maalmaha soo socda, isagoo tilmaamay in amuuruhu si degdeg ah ku dhamaan karaan ama ay qaadan karaan buu yiri dhowr maalmood oo kale oo dheeraad ah. Trump ayaa sheegay in Iran ay hadda tahay dal laga adkaaday, balse uu rajaynayo in heshiis laga gaaro khilaafka jira, isagoo sidoo kale xusay in heshiiska uu faa'iido u noqon doono dhammaan dhinacyada loolanka ugu dhaxeeya gobolka Bariga Dhexe. madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa carabka ku adkeeyay in uusan wax cunaqabateyn ka qaadi doonin Iran ilaa heshiis rasmi ah la gaaro, isagoo dhinaca kale beeniyay wararka sheegaya in Tehran loo soo bandhigay dhaafitaan dhinaca shidaalka ah oo ay suuragal tahay shidaalkooda inay dunida u iibgeeyaan. ma sii socon doonto in Iran shidaalkeeda la dhaafo ilaa ay saxiixayaan buu yiri heshiis dhammaystiran, taasoo u aqbalaya dunida inay la beec mushtiraan. waxa uu sidoo kale ka digay haddii Iran ay buuxin weydo buu yiri jawaab sax ah, xaalad si degdeg ah isugu bedeli karayso, isagoo sheegay in dhammaan dhinacyadu ay ku jiraan heegan buuxa oo ciidamada Mareykanku ay sugayaan oo kaliya amar sare oo aqalka cadaan ka sii daayo iyo taliyaashooda oo afuufa seeriga. Trump ayaa sheegay in Iran ay leedahay dad caqli badan oo karti leh, isla markaana uu rajaynayo inay qaataan go'aan heshiisa oo labada dhinac dhex mari kara. geesta kale waxa uu tilmaamay haddii Iran ay bixin weyso jawaab sax ah 100% noqon weyso, ay suuragal tahay in la beegsado dagaal khasaare naf iyo maal la keeni karo. waxaan diyaar u ahay inaan dib u dhigo go'aan dhowr maalmood haddii ay taasi hirgeli weyso, dagaalku waxa uu noqon doonaa mid lama huraan ah, ayuu Trump hadalkiisa ku gabagabeeyay. Trump oo hadalkiisa colaadii nabad ay ka muuqanayso, inkastoo dhinaca nabadda uu door bidayo marka la fiiriyo dagaalka dalka Iran uu kula jiro. hadda madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa waxa uu muujiyay dadaalo la doonayo dagaaladaasi in lagu soo afmeero si ugu yaraan gunta looga gaaro xalka, isla markaana loo gabagabeeyo mashaakilka gobolkaasi hareeyay ay dadku mushkilada weyn u arkaan guud ahaanba caalamka. madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa qadka taleefanka kula hadlay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump, iyadoo labada hogaamiye ay ka wada hadleen xiriirka labada dhinac iyo xaaladda cakiran ee gobolka Bariga Dhexe. bayaan ay soo saartay madaxtooyada Turkiga ayaa lagu sheegay in Erdogan uu soo dhaweeyay go'aanka uu ku kordhinayo xabad joojinta ka jirta gobolka Bariga Dhexe, isagoo tilmaamay horumar wanaagsan oo fursad siin karaysa xalka diblomaasiyadda. madaxweynaha dalka Turkiga ayaa sheegay in Ankara ay sii wadi doonto taageerada dadaalada nabadeed iyo qorshe kasta oo wax ku ool ah oo lagu xalinayo khilaafaadka ka jira gobolkan. Erdogan ayaa sidoo kale muujiyay in xal macquul ah laga gaari karayo xaaladahan taagan, gaar ahaan xiisadda u dhaxaysa Mareykanka iyo Iran. wadahadalka labada madaxweyne ayaa yimid kadib markii Trump uu dhawaan shaaciyay in la hakiyo weerar military oo la qorsheeyay inuu ku qaado wadanka Iran, kadib codsiyo uga yimi hogaamiyaasha Qatar, Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta. Trump ayaa dhinaca kale sheegay in ciidamada Mareykanku ay wali diyaar u yihiin in ay qaadaan weerar ballaaran haddii arrimahaasi ay sii adkaadaan. arrinta Suuriya ayaa sidoo kale qayb ka ahaa wadahadalka Erdogan iyo madaxweynaha dalka Mareykanka ee mashaakilka ballaaran wajahaya. labada dhinac ayaa isla soo qaaday in ay muhiim tahay dib u dhiska dowladnimada iyo taageero la siiyo Dimashq. sidoo kale Erdogan waxa uu carabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay xalka Lubnaan in uu yahay mid lagama maarmaan ah. labada madaxweyne ayaa waxay sidoo kale ka wada hadleen shir madaxeedka gaashaanbuurta NATO ee lagu qaban doono Ankara 7 ilaa 8 bisha Julaay ee soo socota, iyadoo Turkiga uu sheegay in uu sii wado diyaargarow xoogan in shirka uu ku qabsoomo si guul leh. dhinaca kale Erdogan ayaa tacsi u diray Trump kadib weerarkii lagu qaaday masaajid ku yaala magaalada San Diego ee dalka Mareykanka, kaasoo sababay dhimashada 3 qof. madaxweynaha Turkiga ayaa cambaarayay weerarkaasi, isagoo ku tilmaamay in Turkiga si degdeg ah uga soo horjeedo dhammaan dhinacyada dambiyada leh ee sameynaya tacadiyada aadka u ballaaran. ugu dambeyntiina madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa wadankiisa waxa uu ku raad joogaa sidii maxkamad loo saari lahaa hogaamiye
95 sano jiro oo hore u soo maamulay dalka Cuba oo Raul Castro oo la dhashay madaxweynihii shuuciga ahaa ee Fidel Castro. dowladda Havana ee wadankaasi waxay ku dhawaaqeen in aysan suuragal noqon karin in hogaamiyahaasi loo arkay inuu yahay halyey qaran hoostooda lagala baxo ee hadda da'da ah. sababta ugu weyn ee xeer ilaalinta Mareykanku ay u dacweynayaan waxay tahay burburka laba diyaaradood oo lagu eedeeyay inuu ka dambeeyay ciidamada inuu amar ku siiyo diyaaradahaasi inay toogtaan. labada duuliye ee diyaaradaha waday ayaa lagu tilmaamay inay ahaayeen Mareykan. dowladda Mareykanka ayaa dacwad rasmi ah ku soo oogtay madaxweynihii hore ee dalka Cuba Raul Castro iyadoo lagu eedeeyay inuu ku lug lahaa soo ridistii laba diyaaradood oo rayid ah sanadkii 1996. maxkamadda Mareykanka ayaa sheegtay in Raul Castro iyo shakhsiyaad kale lagu soo oogay dacwado la xiriira isku daydil iyo qorsheynta dilka laba muwaadin oo Mareykan ah kuwaasi oo watay diyaaradahaasi xilliga la soo ridayay. diyaaradaha la weeraray ayaa la sheegay in ay wadeen duuliyaal mucaarad ku ahaa hogaamiyihii hore ee Cuba Fidel Castro oo ah walaalka Raul Castro oo hadda lagu dhagan yahay. xeer ilaalinta Mareykanka ayaa sheegtay in dacwaddu ay muujinayso in Mareykanka uusan iloobin baaliri waxa soo gaaraya muwaadiniintiisa. fariintayadu waa mid cad. Mareykanka iyo madaxweyne Trump weligood ma iloobayaan shacabka Mareykanka ayuu yiri xeer ilaaliye shir jaraa'id ka qabtay arrintan. dhinaca kale dowladda Cuba ayaa si adag u diiday eedeymahaasi iyadoo ku tilmaantay kuwa siyaasadeed oo aan lahayn wax sharciyada. madaxweynaha talada wadankaasi haya ayaa qoraal uu ku daabacay baraha bulshada ku sheegay tallaabada Mareykanka inay tahay go'aan siyaasadeed oo aan wax sala ku lahayn sharciga. waxa uu intaasi ku daray in dacwadda loo adeegsaday si cudurdaar ah loogu abuuro cadaadis iyo waliba suurtagalnimo weerar military oo ka dhana wadanka Cuba. arrintan ayaa si horeysa baa layiri xiisada u dhaxaysa Washington iyo Havana xilli Cuba ay la daaladhacayso dhibaatooyin dhaqaale koronto la'aan iyo waliba cadaadis Mareykanka uu ku hayo ee ka dhasha cunaqabataynta uu Trump saaray. Trump ayaa marar badan wadankaasi ku eedeeyay inay caqabad ku yihiin dowladda Mareykanka iyo shacabkeeda taasoo hadda mar kale muujinaysa in xiisadu ay faraha ka sii baxayso. sanadkii 2015 xiriirka Cuba iyo dalka Mareykanka ayaa wanaagsanaaday waxaana xilligaasi talada haya madaxweynaha hadda lagu raad joogo ee Raul Castro iyo madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama oo xilligaasi talada joogay. hase haatee wax kasta ayaa isbedelay markii madaxweynaha dalka Mareykanka Trump uu talada ku soo laabtay. Trump waxa uu doonayaa isbedel in laga sameeyo wadankaasi sabab la xiriira nidaamka shuuciga ee gacanta ku haya maamulkiisa. labada dhinac ayaa hadda doodooda ay soo cusboonaatay wixii ka dambeeyay markii dowladda Iran ee diyaarado dagaal oo nooca aan duuliyaha lahayn ee shaahida iyo diyaarado dagaal oo nooca iswada ah oo ay leeyihiin Shiinaha iyo dalka Ruushka wadankaasi la geeyay. iyadoo dowladda Mareykanku ay dareemayso qalqal weyn oo saameyn amni ay ku yeelanayso in ka badan 300 oo diyaaradood ayaa jooga waxaana dhinaca xeebta marka laga fiiriyo Mareykanka ay u jiraan oo kaliya 150 kilomitir. akhirta inala socotay oo eegi doona xiisada Cuba iyo Mareykanka meesha ay gaartay subaxnimadan saaka intaas ayaan ku abiyaa barnaamijka aroornimo aynu ku lafagurayno wararka gobolka bariga dhexe xiisada meesha u socoto iyo waliba sida arrimaha taagan loo soo abiyo karo